السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله قالقة ما شاء الله تبارك الله ما أنت بإذن الله الكريم وحنكها لنا حدو إله يراده وحلا يراده شوكتين توحى أضربته إن شاء الله بإذن الله الكريم ولا الله قالقة ومهم إن أدوحى تعشها شوكتيسو waxa aad rabto ama aad jeceshay ama aad xiisaynayso haddii aad joogtayso meel baad gaadhaysaa sare oo maaragtay aan weliba yarayn alxamdulilah rabbil caalamiin ka soo qaad maalin kasta waxaad qabatay wixii aad jeclayd hal saac oo ka mid a waqtigaaga oo dhan maalinkaasoo dhan hal saac baad gelisay hal saac ugu yaraan badh saacad badhkeed baad gelisay waad ka sii kordhisay 2 saac baad gelisay adiga waxaa muhiim ah inaad wixii aad rabtay joogtayso haddaad waxaad rabto joogtayso ood maaragtay wixii aad ku haminaysay ama aad rabtay inaad gaadho haddii aad joogtayso waxaad gaadhaysaa wax weyn oo aan yarayn haddii markay ugu yar tahay ugu badan tahay aad hal saac gelisa maalinkii haddii kalood kasii hadday ugu yar tahay ama ay ugu maaragtay haddii aad waqti maaragtay aad haynin waqtiga baa ciriiri inagu ahay waxaasa maaragtay inta badan aan dhahnaa waqti ciriiri ana ma jiro ilaahay waqtiga hanoo barakeeyay waa sidan inagu ka dhiganay u fiirso wax yar baad fadhiisan meel waxaad dhihi youtube-ka iska fiir ama wax fiiri waqtigaadi dhannaa waxaa arkaysaa wixii uu tagay oo maaragtay uu saacad yar waxaad moodi in yar inaad ku jirtay laakiin waxaa arkaysaa markay ugu yartay iyadoo 3 saac ka cunta 3 saac waxyaalo badan baad ku qabsan lahayd waxbaa ku akhrisan lahayd waxbaad ku baran lahayd noloshaada wax maaragtay mustaqbalkeeda wax u noqdaad yaad ku maaragtay maasha allah yaad ku qabsan lahayd waxa la yiraahdo social mediaha qaybta fiican ee adiga ku anfacaysa ka fiirso waxa maaragtay qabyaalada qashinka waxa iscaayayo dhan waxaasoo dhan badaada maaha laakiin waxyaalo badan oo ku anfacayo noloshaada bedelaya tifka hadday noqoto inay dhiirigelinta ay noqoto oo qofka uu maaragtay dhiirigelinta qof kasta oo bini aadan uu u baahan yahay in la dhiirigeliyo inuu wuxuu jecel yahay lagu riixo inuu maaragtay waxyaalo badan qof aan maaragtay dhiirigelintaada adiga gudahaada aana muhiim weeyo qofka hadduun asagoo is dhiirigelinin wax kasta hadduu fiirsado wax kasta lagu akhriyo oo dhagaha looga buuxiyo waxaan qabso ka kac fadhiga maaragtay wax badan baad qabsan kartaa wax badan baad tari kartaa maanta dhan haddii lagugu hayo oo adiga maaragtay aadan isdhiirigelinin oo adiga qalbigaada iyo maaragtay maskaxdaada iyo qalbigaada ayna ka soo go'in lagama yaabano ina maaragtay aad meesha ka kacdid lagama yaabano weligaa waa fadhinaysaa weligaa yaa allaha waxaad ku haynaysaa un ma qabsan karo waxaan ma samayn karo ma yeeli karo waxaana riyo weeyaan qof adiga kula mid ah hadduu wixii qabsaday gabadh adiga kula mid ah hadday wax qabsatay waa qabsan kartaa gabadh adiga kula mid ah hadday business samaysatay waa samaysan kartaa gabadh adiga kula mid ah hadday wax baratay waa baran kartaa inta badan luuqadda wadamada aan joogno dadku way gabdhaha weliba way ka cabaadaan waxay dhahaan luuqadda nagu adag luuqadda waan fahmi la-aanahay wax aan la fahmi karin adduunka ma jirto waqti unbay u baahan tahay inaad waqti geliso unbay u baahan tahay waqti inaad geliso ood joogtayso waqtigaad gelisay inaad joogtayso kaba soo qaad subaxdii markaad soo toosto kole waad soo toosaysaa soo maaha ilmahaadi baa iskool aadaya wadanka waa ogtay wax fadhiya malaha adiga xataa dada meel aadayn ilmahaadi baa meel aadaya waa inaad ka lahdid wey markay ugu horeyso waxaad soo toosi 6 ama 5 toosiba kaba soo qaad 6 baa toostay ilmahaadi baa toosisatay waad kala hagaajisatay markaad kala dirtay baad fadhiisatay wax yar hal saac baad wax qoritaan aad bilowday ama wax akhris baad bilowday waad maaragtay waad ku dadaashay maalin kasta oo soo toosto halkaas saac baad wax akhrisay haddaad xataa iskool tagayn youtube-kaas wuxuu ka buuxaa wax allaale iyo luuqad kasta oo adduunkan joogto oo lagu barayo oo lagu sharaxayo oo weliba tan macallimiinta kaaga fudud hadhow markii aad heerkaad rabtay gaadho maasha allah macallin waa u baahanta wax kuu sharaxa wax kaa saxo oo dee qof bini aadan oo ka hortaagan iyo youtube wax lagaga sharaxa isku mid maaha laakiin marka hore waxa weye xisaabtii baa ku jirto oo luuqadda rabtay baa ku jirto oo wax aan adduunkan laga baran karin hadday tahay farsamooyinka hadday tahay waxyaalo badan oo wax kuu tarhayo waxaa ka buuxa youtube-ka marka hal saac oo naftaada hal saac oo nolol maalmeedkaada maalinimada ah ka mid ah haddaad geliso waqtigaada markaad soo kacdo aad akhriso kitaabka intaad soo qaado
hal bog oo quraan ah akhrisato wax yar adaad farbarad aad ku jirto aad wax yar aad akhriso aad isku daydo inaad isku gageyso inaad qalintaad soo qaadato alifka barato wax weyn baad gaari meel weyn baad gaari oon yarayn waqtigu wuxuu u baahan yahay qofku inuu meel weyn gaadho ama meel sare uu gaadho wixii uu rabay uu ku haminaya inuu joogteeyo bas waxa inaga maqan joogteyntii iyo ficilkii walaal waad gaari kartaa waxa aad rabto meeshaad rabtana waad gaari kartaa caqabad kasta ha ku hayso cidhiidhi kasta ku jir maaragtay mashquul kasta adduunkan joogo ku jir waxaa weeye adduunyo wey waxaan mar kasta waa iska daalanta waa iska mashquulshan tahay mashquul baa jira laakiin adduunyadaa dhan eed aragto qofkii horumar gaadhay wax qabsaday saacadaha inta adi lagu siiyey baa la siiyey waqtigaadoo kale u haystaa noloshaadoo kale u haystaa waa qof bini aadan oo adoo kala intuu bini aadan leeyahay ama haysta ilaahay ugu nimceeyey buu haystaa laakiin laba si unbaa u kala yaa loo maaragtay labada qofna wuu ka faa'iidaystay ilaahay maaragtay wuxuu uu siiyey ama nimcada uu siiyey ama lixdiisa lixaada uu ilaahay uu siiyey qayb badan oo lixdooda lixaad qabin oo ilaahay u dhamaystirin baa waxa qofka lixdiisa lixaad qaba wuxuuna qabsanay ama uuna gaadhay marka waxaa la isku dhaafay waxa la yiraahdo ficilka iyo joogteynta qofku inuu wuxuu rabo joogteeyo waa wax aad iyo aad muhiim u ah loo isku dhaafay adduunka dhanna wuxuu ku dhisan yahay qofka meel sare gaadhay ama dadka meel sare gaadhay wixii way joogteeyeen ficilkii way qabteen way ku dhaqaaqeen ficilka markay ku dhaqaaqeenna way joogteeyeen marka joogteyntu waa muhiim hadda anigoo kale youtube-kan xilli horaan bilaabay alxamdulilah dadkii ila midka aniga heer saray ka gaadheen meel fog bay ka gaadheen ani intaa waxaan sameynayay waxaan cudurdaar ka dhiganayay inaana waqtigii la gaadhin aan youtube-ka usoo jeedsan lahaa lama gaadhin waxbaad maaragtay ku mashquulsan tahay waxbaad baranaysaa daal kalaa ku haya wad soco horta adigu waxaan waxbarashadan iska soo xidh markaasaad usoo banaanaanaysaa laakiin wixii markaa ku sugahaya inaad meeshii ka qaadda yaa fiican oo wixii isku dhex wado waxyaalo badan buu qofka bini aadamka isku qaban karaa marka waxaan fahmay inaana maaragtay wixii aan labadaba isku qaban karo youtube-kana aan samayn karo haddaan maalinkii wax yar geliyo waa 10 daqiiqo ama ka yar 7 daqiiqo waxba aan micno lahayn shaydaanka wuxuu kugu sheekeynayaa ma qaban kartid waxaan oo dhan ma wada qaban kartid ha samaynin ha fadhiiso waxaasoo dhan wuxuu kaa reebayaa marka qeyrkaa buu kaa reebayaa haddaad waxa adiga hadalkaada iyo dhagahaada iyo waxa adiga kaa dhaxalnaya iyo ma samayn kartid waxaan oo dhan ha isku qabanin waxbaad baranaysaa waad wareersan tahay madaxa lagaa hayaa qof madaxa laga hayo waxyaalahan anigu isku mashquulin jiray madax xanuun baa igu yar dhacay waxaan dhihi jiray waxaan oo dhan iskuma qaban kartid madaxa ku xanuunahaya madaxa wareer baa kugu dhacaya iska daa markuu madaxa kuu qaboobo markaad waqtigaa gaadho baad dhihi waxaana ma suurtagal ma aha ma noqonayso haddaad rabto inaad waqti kuu dhammaystiran oo dhag ku oo ma helaysid weligaa haddaad socoto weligaa waqtigaas maalin heblaan saa noqonaya maalin heblaan saa noqonaya adduunku waa sidiisii u socdaa horey unbuu u socdaa sidiisii unbuu yahay weligii yaali qofka unbaa ka tago dhinta ummadda unbaa dhimata uma ka tagtaa waqtigooda u dhamaada laakiin adduunku waa iska sidiisii uu iska soconaya wax kuu istaagaya ma aha ba yaraatee marka walaalayaal maanta kilibka yarka waxaan usoo duubay waxa la yiraahdo joogteyntu waa muhiim wax yarna ha ahaatee haddaad wax joogteyso way isgaaraysaa wixii way isgaargaaraya kadib waxay noqoni wax weyn oo markaa filayni bay kuu noqonaysaa marka walaalayaal maanta insha allah bidnillahi alkariim muhiimadaydu waxay ahayd inaan isku dhiirigelino aniga iyo idinka kow waa in aniga iska bilaabo markaasaan aniga insha allah idiin soo gudbinaya waxaan aniga iska bilaabay ama waxaan anigu ku dhaqmay insha allah bidnillahi alkariim marka muhiim weeyo in wax aad joogteysid wax yar haddaad joogteysid wax weyn bay kuu noqonaysaa joogteyntu waa muhiim walaalayaal wax badan aan joogteyn waqtigan waa wax waqti ilaahay ina siiyo ballaaran weyn waa ku shaqaysan karnaa waxbaa ku baran karnaa wax weyn baa ku qabsan karnaa quraanka ilaahay baan ku xifdin karnaa alxamdulillahi rabbil caalamiin alla waqtigu ilaahayna siiyey hadduu qofku caafimaad qabo ilaahay waa caafimaadka muhiim ah wax ka muhiimsan caafimaadka ma jirto ilaahay caafimaadka noo daayo caafimaadku waa muhiim ilaahay dee inuu maaragtay caafimaadka ilaahay baa bixiya haddana mid adigu kontrooli kartaa jirta insha allah bidnillahi alkariim caafimaadkeennana aan ku dadaalno caafimaadku muhiim weeyo
qofku hadduuna caafimaad haysanin muxuu wax ku qabsaniba haddaad caafimaad haysanin maxaad wax ku qabsan maxaad wax ku tari marka caafimaadka ilaahay hanoo daayo qofka ilaahay caafimaad siiyo ilaahay caafimaadka u siyaadiyo qofka caafimaad aan haysanin allah siiyo ilaahay waxaan u baryaynaa inuu ilaahay siiyo annagana inuu ilaahay inta caafimaadka haysatan ilaahay caafimaadkooda u daayo insha allah caafimaadku muhiim weeye marka biidnillahi alkariim walaalayaal filimka yarka videoga yarka maanta intaas ay idinla wadaagahayay biidnillahi alkariim aniga wixii hadda ka bilowdo insha allah waxaan isku dayayaa inaan joogteeyo insha allah youtube-kayga sidaan idiin sheegaya anaa mashquulay anaa niyaddeeda ka dhaadhiciyay inaanay waxaan wado iyo howlahan wada iyo inaan isku wadi karin youtube marka waa qasab weeye waa isku wadi karaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax yar weeyaan micno lahayn youtube-ka waa hal saac haddaad geliso markaad ugu badato markaad intaad duubaysiiyo intaad gudbinaysiiyo intaad wax ku qoraysiiyo waxaasoo hal saaca kaba dhigba marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay caafimaadka hanoo daayo wax kasta waan qabsan karaa wax yarna aan joogteyno wax yarood joogtayso adoo wax kasta iska daayay ka muhiimsan iyo ka fiican tahay wax yar ood maalinkii 15 daqiiqo ood wax qabsato adiga naftaada wax kusoo kordhinayo waxay ka fiican tahay adoo iska daaya wax kasta iska faraha ka qaada bay ka fiican tahay marka ilaahay kuwa maaragtay waqtigooda ka faa'iideystaan naga dhiga walaalayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaamu calaykum